بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu halkan ku wada qaadananaa haddii baydmo khadka nuskhada ama farq qurxinta, gaar ahaan khadka noociisa la yiraahdo khatu nasq, darsigiisii saddexaad oo ah tatima ama dhammaystir darsigii labaad. weli waxaynu ku jirnaa xuruuftii ayaynu ku jirnaa qaybaheedii. marka xuruufta qaybta laynka ka degta ayaynu soo qaadanay jus ka mid ah 17 bay ahaayeen xuruufta laynka ka degta. marka qayb ka mid ayaynu soo qaadanay. maantana darsigan saddexaad dhammaystir darsigii labaad weeye oo ah xuruuf allatii tuktabu juz'un minha taxta sadr. xaraf walba oo xuruuftan ka mid ah haafan haaf buu noqonayaa juz'un minha fawqa sadr, juz'un minha taxta sadr. siinka inoogu joogtay sida fideogii hore ama casharkii hore la socoteen. saadkaynu ka bilaabanaa. halkaasaa laga bilaabayaa. line baad saaraysaa, saasad u rogaysa. marka min halkaa laga bilaabo ilaa halkaa waa 3 dhibcood weeyaan. 1 2 3 dhibcahaas waa halbeeg waxa lagu cabirayo. markaad halkaa maraysay hal dhibic baad sidaa u rogtay hoos. saadku markaa halkaasaad ka bilaabaysaa. line weynaad saarta. haddaad line saari weydo waad khaldan tahay. 3 dhinac baad u baxaysaa 3 tallaabo. haddana hoos baad u baxaysaa 1 tallaabo dhibic in leeg. markaa ka bacdi baad halkaa intaad ka qabatid eed wareegga noocana kusoo darsan. iligaa waa taagaysa, kaana toos baad usoo daynaysa, kana xaggan usoo dhaqaaqaysaa. kan iyo kanna kan ayaa gaaban 1 dhibic in leeg. halkaa 1 dhibic buu ka digay laynka. 3 dhibcood buu kaasu balliciisu yahay. qaacidada away allah la socota. kaasuna wuu toosan yahay. toosi toosi kaana 1 dhibic ka dal. intaas waa saadki weeyaan. maxaan ku yidhi halkaa ka bilow 3 dhibcood soco, hoosu soo daa 1 dhibic, halkaa ka soo bilow wareegin labaad, halkaa dhibic buu ka kacsanaanayaa. iligaa taag, oo markaa taaga sidna dhankanna ha u qabanin oo sidaa ha odhan, dhankan kalena ha u qabanin oo xaggan ha odhan. waa inaad toos soo baxda arrinka aad ula socotaa. intaas saadkii haddaynu baranay daadkana waa la mid un dee. saadku haddaynu baranay daadkiina waa la mid. daadkiina marka waa kaa. daadkiina waa kaa. daada iyo daada xurufta laynka dul saaran baynu kusoo qaadanay. caynka waa kaa weeyaan. saa soo qabo. caynka saa soo qabo. way halkaa taa ka soo bilow. xurufta laynka ka degtu ka mid yahay. markaa iminka saasoo kale u dhigmaya like this. eeg saasoo kale taasaa horeysa. saasaa soo dhigtay, taana halkaas ka soo qabatay. marka halkaa dhibic buu ka kacsay. ma odhanaysid qaabka noocaas oo kale ah. eeg inta soo tortay laynka raacin maysid. waxaad kaloo iska ilaalinaysaa inaad saa isu dhaafisid labadiisa wareeg, waayo halkan wuu ka siman yahay. halkanna kama sinne tanaad horeysa 2 dhibcood. dhererkaasu waa 5 dhibcood. 1 2 3 4 5. marka mid yaroo curiya ha dhigano san u gaaban. marka maxaan ku yidhi labadaa wareeg ha isdhaafinin. dilintaa dhulka ha dhigine kor uga qaad. mid ducaysanayana ha ka dhigno sidaa ah, oo labadaas oo sidaasoo kale ah. sidaasoo kale waa inaad tanna soo yar fooroorisaa, kanna sidii wax daalacanaya ka dhigta. waa kaa.
عينكي هذا براني غينكنا ولا مد عين غين ساسا صوتي تاسا صوتي وتلابدا كواد طلباتنا هل كانت كبير وقتي لابدا وريك سدافي هاي سدافين وين حق كسيمنت عين غين قافك فاذا waxaan ku soo qaadanay xurufta laynka dul saaran qaafku waa seerkalka ama wareegaas uu leeyahay dawaraan baa la yiraahdaa carabida daloolkaasna uu leeyahay laynkana hal dhibic uu ka degaya balciisaasuna waa saddex dhibcood oo uu ka gaaban yahay faadi halka faadu ay kana fidsanayd laynkana dul saarnayd wayna ka fidsanayd laynkana way dul saarnayd qaafku uu ka urursan yahay laynkana uu ka dega farqigaas oo kala dhaxeeya labada dhibcoodna dee qaafku waa kaas halkaas ku leeyahay laamka xurufta laynka ka degto kamid yahay alif qor nuun kaana qor nuunka ama intaas laynka ka degsan nuun kaana ku daro saddex dhibcood buu ballacaas u yahay kow laba saddex ballac ahaan halkaa ubax yar buu kaleeya koofiyadda yar taa toosi taana jiifi marka eeg waa alif iyo nuun iyo xilya oo xilyadu waa koofiyaddan sidoo kale waa qurux dhibicna laynku ka dega marka gruupkan la yidhaahdo kaa iyo kan iyo kaa iyo kaasuba ballacoodu waa saddex dhibcood halkaa dhibicna laynka ka dega isku gruup qaaf laam miimku waa buul iyo bakoorad buulkaa iyo bakooradda ama sideedda carabida iyo labada carabida laakiin sida la isugu iidaamayaa muhiima ee la isugu darayo sideedda hoos soo daa sideeddahe hoosu soo daa oo dacalkana dheer isla halkaa ka qabo halkaa dib u noqo bakooraddii samee bakooradda dhibic bay laynka ka sarreysaa halkaa la socdo bakooraddu saddex dhibcood bay laynka ka hooseysaa labada arrimood inaad ogaata halkaana waa furan tahay oo waa maftuux weeyaan naqshadaasu waa naqshad naqshadana waa naqshad kale thamaaniyadii dhig dhinac dhinac ugu qaba kaa ra'daas kusoo samee saa usoo qolocda ee xaggan soo socota marka labadaa naqshadood ayaa miimka mufradka ah uu yahay ee keligii gaaru taagan nuunku waa kan waaba intanba dhibicdaasu laynka hoos ka deg ballacaasna waa saddex dhibcood weeye xagga ballaca dacalkaa iyo dacalkaana kanaa gaaban waaba intanba nuunku waa kaa waawga waa seerka waa intaas intanoo raacdoo la isku daray afkaas yar loo dhuubay halkaana daloolka waa inuu yeeshaa ya-duna ugu dambeyn waa intii aan kan ka dhiganay balaas lagu daray wareegaas oo laynka ka degay halkaa waa ka siman tahay dadka qaar baa saa isu dhaafiya moogta ya-da oo taa iyo tan isdhaafiya waa inaad tan dib u qaadaa taa la ekaysiisaa markaa saasoo kale ayaad u qoraysa aad arkaysid hal mar baan 1 minute ayaan ku dul cararayaa intaas saadkii daadka caynka غينka qaafka laamka يعني la soco miimka miimka kale lahayso weligaa laha nuunka
halkaas gaaban halkaas dhibicno lan ka diga waawga intan waa racdi intan waa faada madaxeedii daloolkan wile iyo yaada dabcan yaa saa u noqotaana way jirtaa oo sidaa dib ugu laabataa sida calaa markaad dhiga sida oo kale iyo fi iyo calaa iyo fi iyo asaa u noqonaysa marka darsigeenu halkaas ayuu ku joogaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa laydinka rabaa ku celcelin fara badan ardayga dhowr jeer noolu sheeg ku celcelin fara badan baa laga rabaa oo uu cashirka ku celceliyo si uu fartiisa u qurxiyo una fadhiisiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh